السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل طوع أنا ونكسن لما أنت كحرين شانل كيجا تي في لوق نيوز أوفيشيال برنامج كيجا عاوة وحكوا الدنيا لو أجنتا وري وبرنا عيارتي أو جرب عليسكا والله بالله ما أنت عارف بعدا جمعة وفينال كأهان دونو عدو على يدمو إسلام ما أنتني وحلا قرطوري عياري كالي شامبيون كلا القرطوري إسكو أتكاسن كل وادين صدري دونا labada ciyaar maanta dhacday waa beri iyo midnimo bacadley ayaa dhacday si qurux badan ayay u bilaabay si qurux badan ayay u dhamaatay midnimo bacadley gool ayaa laga dhaliyay kambi hore kambi dambana difacna waa laga xirtay weerarna waa lagu soo qaaday weerar aad u fiican oo qurux badan banooni far badan ay cuneen laftirkooda ayagana weerar lagu soo qaaday saas guusha waxay ku raacday waa beri ayay guusha ku raacday جرب عليسك وابري أيه جوش كراهي برنامج كنا أجنتيه كواد برتاس أيام كوكيننا وحن روا إن سيجو تجلا أجنتيه لبعض أجنتاس وحكو سابسين هاي أجنتاس وقدوميه يقدوم كحجين كا يوكو سابسين هاي لبض رنيرة وعلى رنيرة سيد رنيرة أيام فهمي قدوميها سعيد حسو يو قدومي كحجين كيسا والله وحنيه كرا والله والله أدي سفهنسن واي والله شقة أد قروح بدن وحنروا هل نام أسي كده قلا كو وحن كده قلا سعيد حسو سعيد ونين أو دقمة مقع كله ونين دلنيرة ونين أو بنوني قبرت وله ونين إمام قبرت وله واي وحنا أو سعيد قبرد وين وليه هاي دلنيرة وحي نعبنتاي وحي جعليين أيو قبرد وليه هاي دلنيرة نقف بكسيد حجرة أيا وحي وحوين وحاكل جرتا أجنتيه أيكو آدين قدوميها يقدوم كحوين كأه قدوميها سعيد وحو آد معناها وديريا دلنيرة قلبي قوضة سو معناها أراعي لهاي نيدو قدلي لهاي يا أد وفي عني هاي وانا نين دلنيرة أو حلكس وحن أجندي كلاكوسي هذا يا قدومي كحوين كا والله أرتو قدومي كحوين كا أسقى وانين دلنيرة وحو ومعناها خبرت أولي هاي قوان أدك أيو خبرت أولي هاي قوان كيسنا كمان نقنايا سيدي سيبا قفك هدوبو وقوان كيسا وسعلنين وهر سينايا وحال ديه كرا وانين هولكر وحال ديه كرا قوان كيسا وكو في عنيا شرعي أيو ليهاي شرعي قاس أيو كنقاقا شرعي قاس نوكو سقناه وحاكلا أوليهاي وحو سميي سوق هبلوك لقطو وحو سمييان وحيالا آد وقروح بدن أي سمييان دادكنا وحي دهان سعيد قدومي واي لكن قدومي كحوين كاعد وشقايا واجرتا قدوميها مرء نصنايو قدومي كحوين كيسا شقينايو لكن قدوميها اساقنا وشقايا لبضان نينو وإسفهسينيين لان يردو حانو باقايا معناها إن برنامج كاس سعيد maahan gudoomiye ku-xigeenka shaqeeya hadeen ma saas maahan labadaas nin way isfahansan yihiin sharcigoodana isma dhaafayo ninkan uu ku kalsoon yahay Saciid gudoomiye ku-xigeenku ku kalsoon yahay
wuuna gudoomiye ku-xigeenka Siciid uu ku kalsoon yahay. Waxaan hambaliyo bogaadin aad u qurux badan oo ajandahayga aan kusoo gabagabeynayaa aan hawada usoo marinayaa gudoomiyaha Siciid Xasow oo nin dhalinyaro qurux badan gudoomiye ku-xigeen ka dhigay oo sharcigiisu aad u adag tahay. waxaan hambaliyo labaad u dirayaa gudoomiye ku-xigeenka Jihin. waxaan kale aan hawada usii marinayaa gudoomiye ku-xigeenka habka ay soo dhisayaan sportska. waxaan kale aan u sheegayaa dhalinyarada sportska maadaama uu safar shaqo uu ku maqnaay gudoomiyaha safarkaasna wuxuu ahaay safar oo hab dhismeedka garoonka ay macnaha ka shaqeyn doonaan. garoonkana waxaa la sameyn doonaa barnaamij aad u kala duwan. waxaan lagu ekeen doonaa harka jiidinta ku eg tahay ay ku eg tahay dambasta ayaa laga suubinayaa silig macnaha aad u weyn bulkeeti dadweynaha kor le ka fiirsanaya sidii rikoorad markay taasi loo dhexgelin. barnaamijkaas ayay diyaarinayaan nimanka shaqadooda yar maahan, waa niman shaqadooda meel dheer ay taalo waay, meel dheer ayay jirtaa. nimankan waxaan rabnaa inaan garab istaagno. ani khaasatan tvgayga waxaan ballanka qaadayaa inaan sportskaas aan hor u wadaya hadduu alla idmo. waxaa kale aan idinkugu baaqaya habeenka jimcaha gudoomiyaha ayaa ajandahayga iigu aadan uu soo fadhiisan doona stuudiyaha tv Luq News Official sportska uu kasoo fadhiisan doonaa Sky Sports Luq ayuu soo fadhiisan doonaa. waana ajenda aad u qurux badan ayuu ka hadli doonaa. ajendiisuna ajenda oo hal nooc ma aha, dhowr ajenda ayuu ka hadli doonaa. waxaan idin leeyahay aniga iyo farsamayaqaanada idin leh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا channel ka dadku cusub tahay subscribe ka noo saar, like ta noogu dhufo, gambaleelka na furo, noo share geysi asxaab sidaad camal qurux badan aan u helno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.